كوسابسن أنيجا معارض نمط horta mucaaradka in la fahmaan rabaa waxa aan waana fahmi karaa waxa qaladka looga fahamsan yahay sababtoo ah dawladii ugu dambeysay anaga aan haysano dawlad Soomaaliyeed ah mucaarad ma ogolayn waa inaad idinka dhalinyarada intiina badan laga yaabo dawladdu mucaarad ma ogolayn waxaad ula jeedaa dawladda militariga mucaarad ma ogolayn dadkii marka ka ra'yi duwanaa dawladda binaadamkiina isku hal ra'yi ma noqon karo Soomaa dadaa ka ra'yi duwan dadkii ka ra'yi duwanay waxa loo diiday space ay ra'yigooda ku cabiraan maxay sameeyeen marka duurkay galeen jabhaday noqdeen hubay qaateen because qofkii markuu damco inuu wax saxo oo wax sheego oo loo diido wixii duurkuu galay jabhadu noqday jabhad markuu noqday mucaaradnimadii waxay noqotay marka mucaaradnimo hubaysan oo lagu la dagaalayo dawladii dadka marka wali waxa ka muuqda mucaarad markii la yiraahdo waxay u haystaan laakiin Kenya hadda opposition dhahdo problem ma Kenya opposition sax waxa la haystaa adiga waa sugaysaa maanta hadduu Uhuru hadlo waxa hadda maalmahan waxa wali laga qabaa inay heshiiyeen Uhuru iyo maaragtay iyo Raila waxa leeyahay dawladda yaa qaladaadkii sheegi doona hadda la isku haystaa cabsi wali la dadka Kenyaanka wali la qabaan mucaarad la'aanta wali ka qabaan marka mucaaradku annaga mucaaradnimadan waxa mid wax dhisaysa dawladda markay qalad sheegto ay waxaan jirin sheegto madaxweynaha ballanqaad uu galay baarlamaanka hortiisa 100 ballanqaad ka sheegay 10 ballanqaad oo yiri saasan yeelay saasan madaxweynaha ballanqaadkii maaha markay tiraahdo annaga khayr iyo cirkaan kala haynaa la yiraahdo waa kan dadweynihiisaan oo hadlaayeen arrintu saas maaha accountability-ga ka mid tahay waa ka xunnahay baarlamaanka ee shaqaas inuu qabto laakiin uma muuqato baarlamaanka inuu shaqaas qaban arrintan pointigan muhiim waa inaan sheego baarlamaanka ee la xisaabtanka maalinlahaas baarlamaanku waxay ka xisaabtameen xaaladda amniga arrinta amniga meesha ku dambeysana ma taqaaniin say u hadlayeen ee u doodayeen ee u dhaliilayeen amnigiisaan la dhahayay waa la qabtay gudoonkii baarlamaanka qabtay wuxuu yiri arrintan guddiga loo saaraa waxa la yiraahdo guddiga loo saaraa daaman qashine waa waxana hor loo wada aan la rabin arrintii way dhimatay marka baarlamaanku ha soo ceshto kaalintiisa la xisaabtanka xukuumadda annaga opposition aan hay sax waay mucaaradaan hay sax waay waxaan u taaganahay dawladda inaan saxno bari hadda annaga xil qabanno waxaan rabnaa annaga kuwa kale intii imaadaan dhinaca kale ayna saxaan sida madaxweyne farmaajo shalay uu saxayay oo u dhaliilayay madaxweynaha say ka horeeyay dawladda say ka horeeyay